xildhibaanada sharafta leh mudanayaal marweyn waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdi salaan intaan qodobada dhexgelin ka hor waxaan rabaa dowladihii dalkan soo mareen inaan raaligelin siiyo ajandaa ka hadal xildhibaan waa ka hadlaya warkaan muhiim u yahay sacdiye gudoomiye raalli haw hal mar aan gaarsiiyo raaligelin idiin siinayaa maxaa yeelay hadal uu maalinkii dastuurka arrimihiisa bilaabanaya gudoomiye iidow halkaan uu waxaan rabaa horta marka horeysa inaan ka hadlo qodobka ah soo riditaanka ilmaha soo riditaanka ilmaha sababaa keeno marka waxaan aad u jeclaan lahaa warka in la israaciyo warkan qabyada laga dhaafo barkee gabadha waxbaa koos galay xanuunka marka laga reebo in ilmaha la soo rido barkee labada qofood markii la isu diido banaanka iska doonanayaan ilmaa imaanaayo ilmihii waxay noqonayaan in la soo rido marka taasaysan u dhicin waxaan rabaa guurka hore in la fududeeyo oo lacagtana la dhimo dadkana la isu ogolaado qodobkaas intaas in lagu soo kordhiya aad u jeclaan lahaa waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo gudmada fircooniga iyagana waa taageerayaa haddaay xildhibaan bidhaanow wuxuu yidhi dad bay caado u tahay arrintaas caado fiican ma ahan bidhaanow dadka in la lugooyo ma ahan in gabdhaha sunni ahaadaana muhiim ah adduunyada intay joogaan ayagana ay raaxaystaan oon la lugooynin arrintaas waa soo dhoweynayaa in la sameeyo oo si fiican weli loo qeexo marka aadaa u mahadsan tihiin waxaan rabaa qodobka kale oo aan ka hadlayo uu yahay qof kasta waxaa la yidhi wuxuu xaq u leeyahay inuu bannaan baxo aniga waxaan qabaa qodobkaas in si fiican loo xoojiyo dadkan ummaddan soomaaliya la yidhaahdaa in warqad ogolaasho la helo weli warqaddaas la sii xoojiyo meelo badan ay soo marto haddaan rabtaan in qoryo la isu qaato baasuukiyaal annaga waa bannaan baxayna la yidhaahdo meelaha la isxabadeeyana sidaan ha u fududeeya laakiin haddaan rabtaan in wax la xakameeyo in la xoojiyo arrintan weli dhowr wasaaradood iyo wasiiro gacanta loo geliyo dastuurkana lagu muujiyaan qabaa aadaa u mahadsantihiin waana idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu laakiin maanta waa ay afduubtay waraa igu jiro godoomis inaan hadlaan rabaa waxaan rabaa in abaalkii dowladihii waddankan gashteen inaanan laga abaal dhicin afka soomaaliga maanta aan ku hadlayno ciddii qortay intii maalin meeshan la soo istaagay lama sheegin soomaali waa hadli jirtay